Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre ayaa kormeer amni ku sameeyay isgoysyada ay ku sugan yihiin ciidanka sugaya amniga caasimadda Muqdisho iyo taliska qaybta guud ee booliiska gobolka Banaadir. xarunta hagista iyo ka jawaabidda nambarka 991 booliisku dhawaan howlgeliyeen si shacabku ay ugu soo gudbiyaan xogaha ay helaan ayuu Ra'iisul Wasaare Khayre warbixin ka dhageystay howlwadeenada booliiska ee u xil saaran shaqadaasi muhiimka ah ee isku xiraysa booliiska iyo shacabka xogta u soo gudbinaya taasoo la xiriirta hanaanka ay u shaqeeyaan iyo wixii u qabsoomay booliiska Soomaaliyeed wixii ka dambeeyay markii dhawaan la howlgeliyay adeegan fudud ee nambarka 991 iyo faa'iidooyinkii ballaarnaa ee laga dhaxlay. Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre oo bogaadin u diray dhammaan ciidamada ku howlan sugidda amniga shacabka Soomaaliyeed ayaa u sheegay saraakiisha booliiska in wada shaqaynta booliiska iyo bulshada inteeda kale ay muhiim u tahay sugidda amniga dalka. Nambarka gaabanna 991 uu ka mid yahay wadooyinka ugu muhiimsan ee isku xirka, waxa uuna laamaha amniga kula dardaarmay inay laban dadaalada lagu sugayo amniga dalka iyo dadka Soomaaliyeed. taliyaha ciidanka booliiska Soomaaliya Jenaraal Bashiir Cabdi Maxamed oo warbaahinta qaranka ugu warbixiyay kormeerkii Ra'iisul Wasaaraha ayaa shacabka Soomaaliyeed ka codsaday in booliiska ay la shaqeeyaan isla markaana xog kasta oo ay helaan ay ku soo gudbiyaan nambarka gaaban. Bismillahir Rahmaanir Rahiim. Alxamdulillaah in waxaan fursad u helnay inuu Ra'iisul Wasaaruhu noo raaco howlgallada caadiga ah ee sugidda amniga ee ciidanka booliiska hayo darfaha magaalada. waxaa kale oo fursad noo ahayd inuu Ra'iisul Wasaaruhu soo arko xarunta aan ugu talagalnay in shacabku ay kala xiriiraan dadweynaha ay kala xiriiraan ciidanka booliiska Soomaaliyeed. lambarka 991 oo qof kasta muwaadin ah uu si bilaash u soo wici karo. lambarkaas aan ugu talagalnay qofkii inuu sheego ma loo baahan xitaa magaciisa inuu sheego meel wax ka dhaceen wuxuu arkay iyo hadduu dhibaataysan yahay sidii loo kaalmayn lahaa guddigoodba. kaasna fursad noo ahayd inuu soo arko indhiis ku soo arko wixii macluumaad ah uu nala wadaago iyo saan anagu maaragtay aan howlgalayno taasina meesha ku jirtay. inta kale tan waxay howlgallada caadiga ee lagu ku sugayno amniga magaalada Ramadaanka insha Allah idinka Ilaahay shacabkana waxaan ka codsanaynaa si hor u la shaqeyn jireen ciidanka inay ciidanka booliiska la shaqeeyaan kana faa'iideystaan hadeer lambarkana 991 ay ku soo sheegaan wax kasta oo dareen ah. magacaaga lama rabo daarta magacaaga sheegin wixii dareen ay dib u keenay amnigaaga iyo xaafadaada iyo deegaankaaga inaad 991 soo wacdid waad la socodsiisay ciidanka booliiska si ay uga howlgalaan iyo wixii kale oo zaa'id ah oo indhaha ay qabtaan. halkan waa taalada astaanta iyo xasuusta waa dhalinyaradii SYL ee gobonimada u horseeday ummadda Soomaaliyeed. dhismo iyo dayactir xoogan ayaa ka socda. dhalinyaradan oo farsamada gacanta ku bartay xabsiga dhexe ee Xamar oo uu hogaaminaya taliyaha ciidanka asluubta Soomaaliyeed ayaa wada dhismaha taalada si iyadoo qurux badan 15 May ee dhalinyarada Soomaaliyeed ugu dabaaldegaan aasaaskii ururka dhalinyarada SYL ee loo asteeyay maalinta dhalinyarada Soomaaliyeed. Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre ayaa kormeer ku tagay taalada SYL ee dhismuhu ka socdo si uu dhiirigeliyo dhalinyaradani ku howlan dhismaha iyo dayactirka taaladan muhiimka u ah. taliyaha ciidanka asluubta Soomaaliyeed Bashiir Maxamed Jaamac ayaa Ra'iisul Wasaaraha warbixin ka siiyay qaabka u socda dhismaha oo ay wadaan dhalinyaradan oo farsamada gacanta ku bartay xabsiga dhexe ee Xamar isla markaana ka tirsan ciidanka asluubta Soomaaliyeed. waxa uu sheegay in 15 May la soo gabangabayn doono isla markaana dhalinyarada Soomaaliyeed ay iyadoo qurux badan ku dabaaldegi doonaan.
ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre ayaa bogaadiyey howlaha lagu dardargelinayo isxilqaan oo lagu dhisayo taalada SOL isla markaana u mahadceliyay cid walba oo ka qayb qaadanaysa dhismaha xarumaha danta guud. Nasra Bashiir Cali, warbaahinta qaranka, magaalada Muqdisho.